alaabta naaska waxay ilmaha uga soo saaraysaa caano ku filan waxayna sare u qaadaysaa kalsoonida hooyada maxaa yeelay hooyadu waxa ay arkaysaa ilmaheeda oo si caafimaad leh u koraya taasina waxa ay kordhinaysaa farxadda gudaha ee hooyadu ay dareemayso waxay kaloo hooyada ka caawinaysaa inay si fudud ula qabsato shaqada haddii ay shaqaale tahay ama safarka haddii ay safar ku jirto maxaa yeelay alaabtan oo loogu talagalay soo saarista caanaha waxay hooyada siinaysaa fursad ay si habaysan ugu laabato shaqada ama safarka iyada oo aan lumin hooyadu xiriirka nafeed ee ay la leedahay ilmaheeda alaabtani waxay kaloo muhiim u tahay ilmaha ku dhashay waqti hore oo aan si fiican u nuugi karin naaska hooyada laakiin caanaha la soo saaray ayaa si toosa loogu shubi karaa weel si ilmuhu u helo nafaqada muhiimka ah ee naaska hooyada ugu dambeyn alaabtani waxay ka hortagaysaa xanuunka naaska iyo in caanuhu ururaan maxaa yeelay soo saarista joogtada ee caanaha waxay yareynaysaa suurtagalnimada xanuun iyo infekshan inuu naaska ku dhasho